عميل هو كفاية سيلا بقول كجاري ولوم الجريه لعك بدر 4 بليون وحاسده كعميل هو الوكيل هذا يجي بحياة إلا ما تكون وكيل يا الدياري ومالك كده نقاشية تطبق كده نقاشية لبا بليون أو بر ودهان معامل شبابيو waxay gaarayaan 1.6 milyan capitalka guud ee bangigu ku shaqeynaya waa 565 milyan sidoo kale waxa isbeddello lagu sameeyay si uu xafiisku xaruntiisii weyneed u helo inaan iibsanay xarun suuqa dhexdiisa ku taalo meel muhiim ah taasoo hadda meesha loo shaqeysay hilib isku degan yahay sidoo kale waxaan gobolada iyo magaalooyinka weydiisanada la siiyay ilaa dhul 40 goobood gaaraya kuwaasoo loogu talagalay inuu bangigu ka dhisto xafiisyo iyo businessyo kala duwan waxaa sidoo kale aan diyaarinay qasnadii dhexe oo qaadi karta ilaa haddii lacagta 200 la xisaabiyo ilaa qaadi karta 100 bilyan lagu xaran karo guulahaas la gaaray waxaa saldhig u ahaa shaqaalihii xafiisku uu lahaa dadaalkay sameeyeen guddiga boorka iyo maamulka qaybihiisa kala duwan adeegyada bangigu uu bixin doono guud ahaan wuxuu bixin doonaa dhammaan adeegyadii bangiyada oo dhammaystiran oo waafaqsan shareecada islaamka kuwaasoo qorshaha loogu jira inaanu ku fidino dalka qaybihiisa kale iyo sidoo kale wadamada dariska markii national bank ogolaansho laga helo sida ugu dambeyntii waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dadkii nala shaqeeyay institutionadii ka qayb qaatay in bangiga Shabeelle halkan uu soo gaaro ugu horreyn waxaan mahad ballaaran iskale dowladda deegaanka Soomaalida isku duubnideeda oo muruq iyo maal iyo maskaxba la garab taagneed bangiga Shabeelle inuu maanta taabagalo waxaa sidoo kale mahad ballaaran iskale ilaahay ka soo koob shaqaalihii mulkiilayaashii bangiga boardka managementiga iyo shaqaalaha dhammaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa teamka national bank bangiga qaranka oo marar badan taageero naga siinay iyo hagitaan nala garab taagnaa ilaa intii aan ku jirnay transformation process waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale hay'adda Mercy Corps oo mar walba nala garab taagan taageero dhaqaale iyo ku farsamada waxaa sidoo kale u mahadcelinayaa SHARP project financial service-ka siiyeen iyo taageerada la sameeyeen xafiisyada heer deegaan iyo dhammaan xafiisyada gobolada sida xafiiska maaliyadda xafiiska beeraha tibadka shaqaabo kan ka wada shaqeyno sidaa daraadeed ugu dambeyn waxaan bulshadeena u ballan qaadaynaa sida magaca bangigu sheegayo Bank of Ethics maadaama yahay oo bangiga anshaxa wanaagsan yahay in shaqaale anshax wanaagsan adeeg anshax wanaagsan iyo qaab dhismeed guud oo anshax wanaagsan inaan ku dhaqmi doono hirgelin doono haddii la hayra waxaan kalsooni buuxda ku qabnaa anagoo kaashanayna bahwadaagta inaan ka midha dhigan doono ujeedooyinkii loo aasaasay bangigan sida ku cad qorshaha 5 sano ee bangiga u dejisan waxaan rajaynaynaa markaanu ka gudubno waddankeena inaan sidoo kale ku ballaaran doono wadamada dariska waxaan bulshaweynta iyo dhammaan stakeholderska kugula dardaarmi lahaa in dhammaan bahwadaagtu si dhammaystiran la shaqeeyaan bangigan cusub si uu taabagalo oo u hirgeliyo ujeedooyinkii loo aasaasay mulkiilayaal in laga noqdo oo sheer laga iibsado qof walba oo sheer ka gadan karo sidoo kale in akoonnada laga furto oo la isticmaalo bangigan iyo in si wada jir ah aan uga wada shaqeyno horumarinta xaqiijinta iyo higsiga bangiga aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.